bayaankii dhawaan ka soo baxay shirka golaha wadatashiga qaran ee dhawaan ku soo ilaaday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya wuxuu waxba kama jiraan ka soo qaaday nidaamka haatan ka jira deegaanada Jubbaland ee uu madaxda uu ka yahay Axmed Madoobe. madaxdii golaha fadhisay waxa ay soo joodiyeen saxiixeen in wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka in ay keento kala soo joodin sharci ah oo la xiriirta xaaladda Jubbaland si halkaas loogu helo nidaam dowlad goboleed oo sharci ah. nuxurka qodobkan waa inuusan haatan Jubbaland ka jirin maamul goboleed sharci ah. waxaa la filayaa dhawaan iyadoo la raacayo go'aanka golihii wadatashiga qaran in ay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya in ay soo joodiso qabasho shirweyne u dhan yihiin reer Jubbaland oo laga tashanayo dhismaha maamul cusub oo ay yeeshaan reer Jubbaland. kadibna hadafku waa in la dhisaa maamul cusub oo aan ahayn midka Axmed Madoobe. xasan sheekh maxamuud waa la fahmi karaa isaga iyo Axmed Madoobe waa laba nin oo ishayo, laakiin maxay qoorqoor lafta garan iyo Cali Guudlaawe ay ku bedesheen in ay saxiixaan bayaan lagu sheegayo inuusan Jubbaland ka jirin wax nidaam dowlad goboleed oo sharci ah. dabcan waa dakana siyaasadeed oo saddexda nin xitaa firdhiye ay ka galeen Axmed Madoobe. dad badan lama filaan ay ku noqotay inay lafta gareen Cali Guudlaawe iyo qoorqoor ay saxiixaan go'aan si cad meesha uga saaraya jiritaanka nidaamka Axmed Madoobe, iyadoo la og yahay inay qaarkood sheegan jireen inuu xiriir wanaagsan kala dhexeeyo Axmed Madoobe. inkastoo saddexdaani aan wax sharciyad haysanin oo aan dekanahooda loo xisaabin karin dadka ka soo jeeda Galmudug, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed, haddana arrintan waa dekano shakhsi ah oo saddexdaasi nin ay abuurteen oo meel gaar ah u taala siyaasadda Soomaaliya. waxaa la fahansan yahay inay saddexdan nin awoodeen inay xasan sheekh maxamuud kula degaan qodobkan oo ay dhihi kareen ka saar warmurtiyeedka oo xukuumadda goonaha u soo saarto qodobkan, laakiin ma dhihin ee waxa ay doorteen inay u bareeraan Axmed Madoobe. macaashka ay ka raadinayaan oo ah inay xasan sheekh maxamuud la sii noolaadaan siyaasad ahaan ama muddaxileedka cusub ay ka helaan wax walbana ay ku raacaan hadday qaldan yihiin ayaa la ogeyn inay u maradheli doonto, maadaama ay macquul tahay inuu xasan sheekh maxamuud uu ku dhaco isbeddelo degdeg ah hadday u socon weydo doorashada uu haatan uu wado. wuxuuna markaasi ku qasbanaani doonaa inuu u soo laabto doorashadii dadbaneed ah. haddii uu albaabka doorashada qofkii codka ah uu ka soo xirmo xasan sheekh maxamuud uma baahna markaas qoorqoor lafta gareen iyo Cali Guudlaawe, waana la yaqaanaa xubnaha u baahan yahay markaas. dhanka Axmed Madoobe waxaa laga soo warinayaa inuusan ku farxin sida ay saddexdaani ula safteen xasan sheekh maxamuud iyagoo og waxa la isku hayo, kuna saxiixeen warqad waxba kama jiraan ay ku sheegeen jiritaanka maamulka haatan ka dhisan Jubbaland. haddaba sidee u aragtaa adiga?